xafladeena way bilaaban doonaa ugu horeyn waxaan salaamayaa madaxda qaranka ee kala duwan hadday tahay golaha wasiirada xildhibaanada golayaasha kala duwan ee qaranka madaxda axsaabta qaranka ka socota culimaawidiinta shirkadaha iyo ganacsatada bacda jaamacadda beder ee ugu horeeya maamulkeeda sare boorka shaqaale weynaha ardayda qalin jabinaysa waalidiinta dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib maanta ay taariikhdu tahay 10kii bishii tobnaad 2023 maalin salaasaa kuna beegan taariikhda hijriga 25kii bishii koowaad ee muxaram 1445 waxaynu u fadhinaa amba aynu goobjoog u nahay qalinjabinta in ka badan 600 iyo jarjar arday oo ka qalin jabinaya qaybaha iyo fakalada kala duwan iyo heerarka kala duwan ay bixiso jaamacaddu ugu horeyn waxaan soo dhawaynaynaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda intaa kadib waxaynu ku bilaaban doonaa aayado qur-aanka kariimka ah waxaan ila soo dhawaysaa nimanka arday ka mid ah ardayda ka qalin jabinaysa kulliyadda culuumul qur'aan ama facultiga quraan saynis waxaa quraanka inoogu furfuri doona ha soo dhawaado sheekh maxamed cabdilaahi maxamed ha soo dhawaado ila soo dhaweeya ardayda ila marti sharafaba soo dhawaado sheekh maxamed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان
بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه أجمل هدية شيخ محمد عبد الله محمد وكترسان أرضنا قالوا جميلة ما أنت كلا قالوا جميلة كلية قرآن ساينس أما علوم القرآن في دراسات الإسلامية. جزاكم الله خير من الله هاي هاي نجنا هنبغى نفعه أفلتنا هي نور كاسي توصل بالجد دونا نبغى سكوا كوكبنا دونا وحن هذا سكيلسون ويسان بدون كحيين كجامعة بدر مضانا الشيخ أبي علي محمد سودا وجدي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إلهي سبحانه وتعالى ما هذا لك وحان سلام تسام وسلام يا مرت شرفتك الدوام كسر غير شيء حفلتها جامعة الرياض العالمية مدحنا دولتنا يا رجل madaxda xisbiyada boorka jaamacadda gudoomiyaha jaamacadda imaamka jaamacadda waalidiinta iyo ardayda qiimaha badan ee maanta loo agaasimay xafladoodii markaa qalinjabinta iyagana waxaan leeyahay hambalyo ilaahay subxaana wa tacaala idinku anfac cilmiga aad barateen kuwii ku tamariya allah idinka yeelo. intaa markaan ka soo gudbo jaamacadda iyo waxaweye wixii la xidhiidha gudoomiyaha inoo faahfaahin doona. anigu waxaan jeclaaday marka inaan ardayda la dardaarmo qodobanahan kala hadlo. dardaaranka koowaad in ilaahay subxaana wa tacaala marka ay ka baqdaan waxaan ay barteenna ku camal falaan sharciga ilaahayna subxaana wa tacaala sidiisa markaa ay raacaan ay ka baqaan. wasiyada labaad ama dardaaranka labaad inay sii wataan aqoontu ma dhammaato. maanta heer baad joogtaan heerar kaloo ka dambeeyaa jira sii wada ha ka daalina baaraka allahu fiikum aqoontana markaa wada. waxaan kaloo u sheegaya ardayda aqoonta iyo dadaalka qofku isagaa isgaarsiiya juhdigiisa iyo dadaalkiisu ku gaadhaa. wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalama man bata'a bihi camalu lam yusric bihi nasabu. qofka camalkiisa iyo kartidiisu ay hoos u dhigto waxa weeye abtirsiintiisu kor uma qaado meel la gaadhsiiso. waxaan odhan lahaa ardayda dhibaatooyin badan baa jira sidaan wada ognahay in dhaqankii laga sii tegayo gaalo lagu dayanayo odankisa waxyaabo badan oo isbedela oo ardayda kudhooda ka muuqda dadka ka muuqda inay iyagu ka fogaadaan oo ay waxa ay barteen uu ka dhigo inay iyagu waxa way isku kalsoonaadaan oo ay ka fogaadaan kudayashada indhaala aynu ku dayanayno gaalada iyo wixii ka yimaadaan ay markaa aan wanaagsanayn. wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalama man tashabaha biqawmin fahuwa minhum. qofka qola isu ekeysiya inuu ka tirsan yahay iyagaanu ka mid yahay. waxaan kula talin lahaa kale inay ka feejignaadaan baraha bulshada iyo isticmaalkeeda waa hum laba af leh inay wanaag u adeegsadaan xumahana ay ka ilaaliyaan iskaga ilaaliyaan kana faa'iidaystaan oo waxa weeye wixii aqoon iyo wanaag ku jira marka ay waxa way ka faa'iidaystaan. waxaad fiirisaan shalay baad soo gasheen maantana waad baxaysaan waktigii u gaaban yahay. marka haddii waa maalmo kooban adduunkuna waa sidaasoo
كلام أكون ترميها وحمل النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة وقلب أدوك وقلب يا مجيء العسرين إن يركون أستيل كبير وكتغين وحنقصوا قلالة يا معلمين طالبها المغلوية يلا وحوى يجود ملك الأرضية ما أنت نمله إلا يسوم حيان أركيان أنت سنقصوا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو معتي أيضا من الحقيقة جامعته الشيخ علي محمد. إذا كان واحد من الأسود ويسان قدوميها جامعة بدر مضانة مبارك إبراهيم أي سود وين نعم كنا في كلمة جامعة هذا وغير هذا سود قدومي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مدحنا كنتي كل صعدة بله وسيلة جمهورية سوماليلا وديمانا قرنك مامور كسرة جامعة مامور كبار جامعة معلمين تشرفت له مرت شرف كي علماء أردني نقل جميع آيات والسلامتي فهمتي ما أنت ومالنا القالية ومالين جامعة بدر أي كقل الجنين يا أردن كارثة نحن بقول يكون بتوان أردن أردن ده نحن بقول يكون بتوان أردن واحد كقل الجنين يا كل لها كندون جامعة كل لها أسواق الله أدام بشر تكون بلاوة كل يد ICT ده Information Communication Technology كل يد Accounting and Finance كل يد Education كلية شريعة كلية علوم القرآن كلية هنتي بيزنس كلية أصلا هنتي وكلية هنتي ما تلاقي الجميع اليوم أو الاستقرار هنتي بسيطة اليوم كلية إسلامي بنك أين فاينانس أو كلية ما تسومالي لان حسدت بنكية سومالي لان لما شغالها أنت وضبطك شغال بنكية سومالي لان iyo xataa dadka maamulka sare intuba waxay ka tirsan yihiin jaamacadda Badar ayay ka tirsan yihiin ay ka soo qalin jabiyeen qaarkoodna ay dhigtaan xagga masterska markaan eego waxaa runtii iyaguna qalin jabinaya masterska muxuu ahaa ay ku qalin jabinaya Islamic Banking and Finance ardayba ku qalin jabinaysa kullada lagu qalin jabinaya waxaa ka mid ah masterska maxaa accountingka waxaa ka mid ah project management وحكمل اللهم صل على محمد قضاء نظام القضاء في الإسلام وقتي كل إله جامعات مقع كتاي قرصوريان وبلغ ومان تردل كينا قرصورا كأنا هتي أرضي قاركين قامنا معلمين كيهين سنو كليمنا عبدالله بوست جراجويت وحا كوكا لتشبين دبلوم بوست جراجويت أو هير كالباد يوم هتي كل إله قيبها كالإسلامي بنكنا فاينانس قيبها هتي بروجكت مانجمنت qaybaha runtii researchka sida loo sameeyo iyo loo analyse gareeyo iyo runtii qaybta accountingka qaybahaasna waa qaybaha maanta ay u fadhiyaan qalinjibintooda isku soo gowgow ardayda halkan jooga runtii halkan adag bay soo gashay inay runtii maanta ay qalinjibiyaan waxaan runtii araba si gaara inaan u tilmaamo jaamacadda Badar laba qodob oon isleeyahay waa laba qodob ay awoodda saarto meelo badan oo jaamacadaha maanta ay kaga duwan tahay كم مكان كهر لا يتيادا تيادا صدق ميلون بيسومرتا صدق ذا الباب أي تيادا لا ذحين أي جامعات مسكوتة ذا أودا ينسار الباب كقوة وحويان أرتقى جامعات بدر سوق لايا سيدامو بسوقا وما لهم تي جامعات ويكبت ودي جامعات بدر ودلكينا أيضا رابع يساب طول السنة وصوص صاري هاي الإدوكيشن كوميشن جامعات واحد قالتا بطلر تبكي لغطو كليتها كل حاجة شريعة هي تربية اللغة العربية اللي بدو واحد قالتها أرضية كسر الجبين معاهد شرعية والدراسية حفيظ امتحانات قلب سوماليا وزارة الأوقاف كل هذا كوربان كل هذا ما كان نقطة كلية مادية هذا نقطة ICT Information Technology يا business يا economics يا نقطة accounting Islamic banking
oo hadda waxaa kaloo ku soo biray medicine caafimaadku sidoo kale software engineering iyo civil engineering qaybahaas oo dhanna jaamacaddu waxay qaadataa oo keliya arday sita shahaado secondary school oo Soomaaliya laga ictiraafsan yahay sidaa darteed albaabka koowaad ee ardaygu ku soo galo jaamacaddu waa albaab shuruudaha ku xidhan oo runtii ardayga soo galan la hubiyey ardaygaas oo kale inuu soo galo meesha jaamacaddu waxaanay qaadan oo systemkeeda aan ku jirin maanta waxa loo yaqaan upgrading oo ah ardaygu inuu college ka soo baxay dalka ku yaala oo 2 sano ah ama nusuga ka soo baxo kadibna uu jaamacadda toos u galo oo looga bilaabo sanadka labaad jaamacadda Badar hawshan ma qaadato inkastoo hawshaasi maanta ay tahay system meelo badan oo Soomaaliland maanta ka shaqeeyo yahay sidoo kale albaabka jaamacaddu ay macallimiinta ku qaadato oo isna albaabka labaad waa albaabada ugu adag ee isla jaamacaddu adkaysay qofka macallinka noqonaya jaamacadda Badar policygeedu wuxuu cadeynayaa 8 sharti macallinka buuxiyey inuu Badar uu soo geli karo sidaa darteed macallimiinta runtii dalka jooga kuwa ugu tayada fiican ay jaamacadda awoodda saartaa inay jaamacadda macallimiin ka noqdaan isla markaana jaamacaddu mushaharka ay bixiso marka loo eego wuxuu ku jirtaa mushaharaadka ugu waaweyn macallimiinta marka laga hadlayo ka howlgala Soomaaliland sidaa intaa waxaa ku dheer runtii jaamacaddu marka albaabka laga imaado ardaygu soo galo processka gudaha inta lagu jiro hadday imtixaanaad noqoto hadday teaching and learning noqoto waxay ku jirtaa sistamada ugu adag bay leedahay lagu jeegirayo howlahaas oo runtii ka uu ka yahay in runtii macallinka wax dhigaya joogitaankiisa inuu galaaskiisa soo xaadiyo iyo sistamkiisa la adkeeyo ardayga xuduudkiisa iyo maantigiisa la adkeeyo sidoo oo kale ardaygu markuu baxaayo albaabka kasii baxaayo uu jaamacadda ka qalin jebinayo albaabka saddexaad ah jaamacaddu awood badan bay saartay ardayda maanta meesha fadhiya arday keliya oo hal maado lagu leeyahay oo qalin jebin kara ma jiro arday kaleer ah oo la caddeeyey oo wixii socodii qalinjibintii socodahay ayaa Badar runtii ku qalinjibiya haddii hal maado ku soo haday ma qalinjibin karo waxa ugu dambeysay wiigii ugu dambeeyey hadda waa hantii waxaa la joogay nin aan aad u jeclaa waa macallin quraan weeyaan wuxuu ka qalinjibiyey kulliyadda quraanka nin aad u qiimo badan weeyaan macallinkaasi allahumma salli calaa Muhammad waxa ku harsanaa hal maado maadada ku harsanaad waxay luqadda Ingiriisiga oo shardi ay tahay qofka ama quraan ha dhigto ama sharci ha dhigto ama meel kale ha dhigtay luqadda Ingiriisiga bayskeeda jaamacadda waa lagu dhigtaa macallinkaasi wuxuu yiraahdaa Ingiriisiga ma aqaan imtixaanaadkiina waa ku dhacay maadadaas oo kaliya u jooga jaamacadda hal laga cafiyo jaamacadda go'aankeedu waxa weeye in laga cafin karo qofka ilaa maadada ka baasana ana dhaaf kale waxaan la jeedaa systemka jaamacadda horta sidaas ayaa ku tiyaa u adkaysay adkaantaasi jaamacadda waxay u keentay koob inay jaamacaddu noqoto oo ay ku biirto ururka jaamacadka carabta oo in ka badan 200 oo jaamacadood member ka yihiin inay jaamacadda Badar ay member ka noqoto arday kasta oo ka tirsan Badarna oo jaamacaddaasi markuu galo maadaama liiskii jaamacadda ku jiro website-ka jaamacadda carabta ku jiro intuu soo geli karo sidoo kale jaamacaddu waxay ku guuleysatay dalka Turkiga oo ah wadamada ugu adag ee maanta Soomaaliland ama Soomaaliyada jaamacadda runtii sida lagu garaayo tahay ayaa waxa uu ictiraaf rasmi siiyay jaamacadda Badar haddaad gasho Higher Education Commission dalka Turkiga website-kiisa haddaad gasho oo ku dhufato jaamacadda Turkiga oo laga geli karo ictiraafsan yahay waxa ku soo baxaysa jaamacadda Badar intaasoo dhan runtii jaamacaddu waxa uu la jeedaa in la tayeeyo waxbarashada la aqriyo iyadoo sidaa tahay jaamacaddu waxay aaminsan tahay weli inaanay gaadhin halkii loo baahnaa ayay aaminsan tahay waxay kaloo aaminsan tahay inay hayso dariiqii wanaagsanaa ee waxbarasho tayo lagu helana way aaminsan tahay waxay kaloo aaminsan tahay jaamacadaha dalka ku yaala inay liidin ka tahay marka ama hormood ka tahay marka tayo waxbarasho laga hadlayo marwayo mudanaya waxaan runtii rabaa halkayga inaan ku soo koobo jaamacadda Badar waxay u aasaasan tahay waa 3 shay oo aasaasan tahay 3 shay bay ka duushaa koow waxay u aasaasan tahay in arday ay soo saarto aqoon lana tartami kara ardayda kala caalamka number 2 ardaygaasi akhlaaqiyaadkiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan yahay number 3 ardaygaasi inuu isla wax qarsan karo bulshada Soomaaliland wax la qaban karo haddaba jaamacaddu qodobadaas ay xaqiijiso waxa runaantii ay qabatay intaas oo community muxuu ahay service ah adeeg bulshada oo ugu dambeeyay wiigii hadda la soo dhaafay in runtii number aad u fara badan
oo ah dadka waaweyn ee waxbarashadii runtii ka weynaaday inay jaamacaddu markas ka mido iyada hoos imaada ay ku wareejisay in uu bilaabo waxa loo yaqaano akhriska iyo qoraalka iyadoo hadda dufcaddii koowaad qaybta ay ka qalijabisay macallimiintuna ay yihiin jaamacadda badan ardaydii ka qalijabiyey inay meesha macallimiin ku noqdaan jaamacadduna ay mushahar ku siiso jaamacaddu waxaad ogtihiin inay runtii maanta ay hayso ay tahayna jaamacadda keliya haysaa galaas dhammaystiran oo dhagoolayaal ah oo runtii maqalka naafada ah iyadoo ardaydaasi run ahaantii iyadoo jaamacaddu ardaydaasi ay si bilaash ah run ahaantii wax ugu dhigaan waxay intaa idin dheer run ahaantii ardaydaasi waxay qalin jebinayaan kulliyadda ICT-da sanadka soo sida bartankiisa qalin jebinayaan iyagoo ICT keliya aanu barnay maadaama computerku yahay wax runtii gacan laga qabanayo aanu u baahnayn oon dhagaha aan waxba maqal u baahan maadaama maqalkaanay lahayn ayaa iyagana runtii ay qalin jebinayaan waxaan idin xasuusinayaa oo maanta rabaa inaan runtii idiin sheego horena aanu sheegay jaamacadda Badar waxaad ogeedeen waxa ay waday barnaamijkii la oran jiray maxaabiista waxbarashada maxaabiista barnaamijka waxbarashada maxaabiista jaamacadda Badar sanadkii waxay waday muddo dheer weeyay 3 sano iyo dheeraad weeyay sanadkii hore waxa ku baagreed markay qalin jebinayeen ardaydii ka bixi lahaa jeerasha Soomaaliland ardaydii wax baray ardaydaas iskugu jiray qaar technical farsamada bartay qaar runtii la baray aqoontii guud qaar bachelor qaaday qaar postgraduate laakiin nasiib xumo waxaa dhacay ardaydii qarka u saaray inay qalin jebiyaan iyadooduna aad u sarreyso inay xukuumadda Soomaaliland ay ka joojisay jaamacadda Badar inay xabsigaasi waxbarashada ka sii wado run ahaantii arrintaasi go'aankaasi markii la qaatay waxay noqotay jaamaca arrin aad u layaab badan oo weliba maxaabiistii waxbaranaya layaab ku noqotay waxaanay noqotay mashruucan markii aan wadnay laba qaybood oo qaybsanaa budgetkiisu jaamacadda Badar qaybay bixin jirtay ma aha wax project ah oo jaamacadda Badar ay lacag ka qaadan jirtay waxa barnaamij jaamacadda Badar lacagta qaybteeda ay bixin jirtay qaybta kalena dowladda ayaa bixin jirtay sidaas ayaa lagu waday markii dambe waxay noqotay barnaamijkii halkaa lagu joojiyo ardayda iyagoo qalin jebin oo runtii aan loo dhammaystirin halkaa lagaga hakiyo arrimaha loo joojiyo farsamo ahaan waxay noqonayso dabcan ma raba tafaasiishooda inaan galo laakiinse waa barnaamijyada ugu qiimaha badnaa ee jaamacaddu ay qabatay in dil lagu xukumay oo dil ku xukuman oo jeelka dhex fadhiya oo markii waxbarasho loo bilaabay shareecada loo bilaabay nolosha dib lagu soo laabto isbedelay bal waxaan weydiiyay maxaabiista xabsiga marka ciidanka xabsiga ka shaqeeya oo aad u qiimo badan shaqo fiican la qabtay ammaan gaarana runtii way leeyihiin maamulayaasha iyo taliyayaasha xabsida ammaan gaari kulligan hawsha waxay sheegeen intii barnaamijku socday mushkiladda ugu weyn la xalay waxay ahayd ninka xabsiga ku jira waxa laga ilaaliyo koob horta inuu qof dilo laga ilaaliyo qofka la xidhan waxa kaloo laga ilaaliyo isagu isdilo waxa kaloo laga ilaaliyo askariga inuu dilo barnaamijka Badar ay noqotay xal wuxuu noqday ninkii la ilaalin jiray xabsiga ku jiray muddada dheer ku xukunaa oo noqdo qof aan runtii nabadgelyo ku noolaada qof intuu shareecadii diinta u jeestay isagu is hagaajinaya qof u jeestay inuu Soomaaliga barto farsamadii gacanta u barto nolol kala u galo marka waxay ii sheegeen maalintii aan ka tagayay iyagoo arday badan oo waxa la ii sheegay in ruuxaantii barnaamijkaas isbedel la yaab leh jeelka gudihiisa uu ku shaqeeyay askartiina uu nasiiyey oo askartii wax ilaalinaya ka nasteen inay runtii dabagalkii iyo dhibaatadii maxaabiista kale soo kala gaadhayso waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadaas oo dhan jaamacaddu waxay u qabanaysay waxa uu bulshada Soomaaliland inay kaga qayb qaadato wixii dhinaceeda kaga soo aaday waxay noo dharo jaamacaddu qayb ay ka ahayd weliba hay'adda manhal ay samaysay bridge maanta ka dhisan jaamacadda Badar weyn waa bridge loo sameeyay oo lagu talagalay in runtii muxuu ahaayey jaamacaddu ay ka faa'iideysto ardaydeeda bulshada Soomaaliland gudaha ka faa'iideysato waa lagu mahadnaqaynaa dowladda hoose Soomaaliland oo iyadu maanta qayb laxaad ka qaadato bridge iyada sii dhamaystirto warbixinteedana way ku soo insha Allah المباراه سوى golaha deegaanka dhammaantiin aad baad salaamantihiin waxaan ku soo qabtanayaa salaanteeda iyo mahadnaq u jeedinayaa
runtii shaqaalaha guud ee maxaa jaamacadda ka tirsan oo hawsha soo qalanqaabiyey dadaal badan runtii geliyey mahadnaq gaaray leeyihiin jaamacaddu waxay ku jirtaa jaamacadaha gaarka ee community-ga leeyahay laakiinse boor baa xukuma boorkaasu gudoomiye ku yahay runtii wasiir khaliil iyagana salaan gaaraan runtii u salaamaya sida wanaagsan ay jaamacadda u soo gacan qabtay muddadii ay runtii ay jirtay ilaa haddana u garab taagan yihiin macallimiinta jaamacadda ka howlgala dhammaantood waan salaamayaa asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu